xaflad aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan laguna maamuusayey taageerada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka dhacday magaalada garoosguurow ee dalka jarmalka waxaana warbaahinta qaranka iyagoo la hadlaya ay yidhaahdeen halkan waxaan ugu talagalnay in caawa aan ugu fariistayno oo aan duco iyo soo dhoweyn iyo hambalyo u dirno madaxda qaranka oo baarlamaan labada gudoomiye baarlamaan iyo madaxweynaha ay doorteen ayaan u hambalyaynaynaa waana u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay ha idin saacido dalka iyo dadku kuwa ay mahdiyaan allah idinka dhigo baarlamaankii 11aad madaxweynihii 10aad madaxweynaha mar labaad la doortay labada gudoomiye ayagana mar labaad la doortay waayo aragnimadiina dalka uga faa'iideeya dadka uga faa'iideeya ilaahayna waxaan ka baryaa inuu xaqa idin waafajiyo dalka amniga dalku dhibaato ku qabaa abaarta dhibaato kaleeto oo xad dhaafa weeye waxaan codsanaynaa inaad ka samata bixidaan dadka dhibaatada hadday colaad tahay hadday abaar tahay haddii ay muxuu ahay amni xumo tahay intaba waxaan idin baryaynaa ilaahay inuu idinku guuleeyo dalka kuu dejiyey oo hagaajiyey oo nabadeeyey oo la mahdiin alla idinka dhigo intaasan hadalkayga ku soo koobayaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa maanta Soomaaliya ama dal ha joogto ama dibadda ha joogto waxay u baahan tahay waxqabad iyo horumarin inay dib u noqoto uma baahno ilaahay marka waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu imtixaanka noo fududeeyo dal iyo dibadba ilaahay waxaan ka baryaynaa rag iyo dumar yar iyo weyn ilaahay inuu isku quluub naga dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteennaba ilaahay inuu kor u qaado ilaahay baanu baryaynaa baryada ilaahay baana nagu horumaraa waxayna ka codsanayaa dal iyo meeshaad joogtaanba inaad dalka iyo dadka iyo diinta aad u ducaysaan diinta islaamka alla aqooy diinta islaamka alla aqooy diinta islaamka alla aqooy Soomaali allah israaciil Soomaali allah israaciil Soomaali allah israaciil war badan waxba tari maayo waxaan rabnaa maanta waxaan u joogno xafladda taageerada ducada iyo soo dhoweynta annagu magac kale u dhaqan laakiin adigu madaxweyne u taqaanay xurmadda xabiibul malaayiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa weeye maantay anigoo ku hadlaya afka xisbiga UPD qaaradda Yurub laguna daafuray 2018 dalka Jarmalka gaaraan magaalada Kassel waxaan rabaa maantay inaan uga faa'iidaysto si gaarana ugu hambaliyo uguna duceyno madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ognahay taariikh laga sheego waa ka dhayaasaan isleenahay madaxweyne 4 sano madaxweyne ahay marka horena macallin ahaa 9 sano oo khibrad ayuu leeyahay duco u baahan yahay marka inaan u duceyno xilka allah kuu fududeeyo madaxweyne allahna kula qaadan leeno annaguna waxaan naga rabaa rumaantii dadku waxay yidhaahdaan dowlad qurba joogtana waa laga dhisaa waa laga dumiyahay hadda inaan la shaqayno si hagar la'aan ah gacmo furan ah wada shaqayn ah qalbi furan intaas ayaan ummadda Soomaaliya ka codsanayna oo afka xisbiga UPD ka hadlayo waxaan rabaa maanta inaan uga faa'iidaysto hadal badan meesha ka furmo oo duco waxaan rabaa taageerayaasha xisbiga UPD meel kastay joogaan waxaan rabnaa goolku waa dhalisay guushuna waa timiday ummadda Soomaaliyeed waxaan ku soo dhaweynayaa xisbiga UPD meel kastoo joogtaan gaar ahaan qaaradda Yurub ku soo dhawaada waa furan yahay qabiil ma aha qof waa wax la wada leeyahay intaas kadib gobol markii uu soo dhaqay dalka Jarmalka gaar ahaan gobolka Haysin waxaa joogta ayaan cali federi gabdho kale oo magacaabi karo aad u khayr badan walaalo badan aad iyo aad ka mahadcelina maanta in xaruntiina joogno warka intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa ducada waa xagiina waxaan rabaa kala doqolaanta bahaliga ahada habeen dambe waxaa ka jirta xaflad magaalada Kassel dhammaantiin waa ku casuumantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku rajaynaynaa aniga dowladda waddanka inaad isku furtaan baabuurka ka dhaqaaqa muqdisho inuu bareega ku qabto boosaaso yaarkiisa ilaahay idankiisa xagga kalena ismaayo xagga kale baydhabo ilaahay idankiisa iyaga nabad waanu qabo waan ka carabno oo noqono horumarku wuxuu ku gaarayaa waddanka dadkiisa markuu ku noqdo dadkii ka soo dhaxay markay ku noqdaan waddanka markaas noqonayaa dadweynaha Soomaaliyeedna anigu waxaan kula talinayaa yaan dowladdaas aan dhisi ku qaban
fanaaniinta ka soo qayb gashay munaasabaddan xafladda ah ayaa waxay qaadayeen heese wadani ah haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo maxamed aweys mudday boqolka bartamaha SNTV Germany